Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada janalkeena farxii firsan official hadduu eebaweyne inoo idmo maanta waxaan idiin wadaa barnaamij kaloo qurux badan insha allah la socod wanaagsan ha inaga hilmaamina sheerta commentiga subscribe-ka inta waxay noo tahay dhiirigelin insha allah ka hadal taariikh nololeedkaaga haddaba kumaa tahay cabaas aad iyo aad umahadsan tahay farxiya haashim azar inaan kasoo muuqdo kanaalkaadana waa ii sharaf. magacaago dhammaystiran ugu horeyn magacayga waa cabaas sheekh ibraahim sayid xasan. waa ku mahadsan tahay haddaba ka hadal gormee dhalatay halkeena ku dhalatay waad mahadsan tahay. waxaan ku dhashtay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maamul goboleedka hirshabeelle sanadka markuu ahaa 1989 isla degmadaasi ayaan kusoo barbaaray. waa ku mahadsan tahay waxaan ku leenahay mahadsanid mar kalena soo dhawow waxaan ku weydiin doonaa su-aashan tan soo socota waxbarashadaada dugsiga dhexe dugsiga sare iyo dugsiga hooseba halkay kusoo qaadatay dugsigoonu ahaa goormaanad bilowday goormaana dhammaysay aad iyo aad umahadsan tahay. waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaan kusoo qaatay iskuulada iskuulka facaweyn ee dugsiga hoose dhexe sare ee evergreen balcad. iskuulkaasi waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1993 waana iskuulkii ugu horeeyey burburka kadib degmada balcad laga aasaasay. aasaaskana waxaa iska lahaa allaha sharfee injineer cismaan maxamed mukhtaar ustaad maxamed ayub mustafa ilaahay isnaxariis jannaha siiyo ustaadkii wuu dhintay. sidoo kale waqtiga aan bilaabay waxay ahayd sanadkii 1997. dugsiga hoose dhexe waxaan ka qalin jibiyey sanadka markuu ahaa 2001 sana dugsiyeedkaasaan ahaa. dugsiga sarena waxaan ka qalin jibiyey 2005 waad ku mahadsan tahay haddii aan kusii soconay su-aalaheenii ka hadal taariikh nololeedkaaga waxaan ku weydiin doonaa tan soo socota goormeed bilowday jaamacadaada goormeedna dhammaysay jaamacaddeena ahayd runtii aad iyo aad umahadsan tahay. jaamacadda waxaan bilaabay sanadka markuu ahaa 2013 2017 waa ii dhammaatay waana jaamacadda frontier kuliyadda sharciga iyo qaanuunka ayaana ka bartay. okay waa mahadsan tahay goormee bilowday shaqadaada kuugu horeysay waa mahadsan tahay walaashay farxiib haashim azar. shaqadeedii ugu horeysay waxaan bilaabay sanadka markuu ahaa 2007 isla iskuulka aan ka qalin jibiyey ayaan macalinimo la ii qaatay 2007 ilaa waxaan joogay 2010 waan ka tegay oo iskuul kale ayaan aaday oo aan ku kala dhaafo 2008 aan dhaho waxaan aaday gobolka galgaduud iskuul cawdaq ku yaalo alfurqaan la dhahayaan kasoo shaqeeyay 1 sano dib baa usoo laabtay 2009 ilaa 2012 waxaan joogay isla iskuulka evergreen haddana dib baa waxaan ugu laabtay gobolka galgaduud 2012 waxaan joogay degmada balambal iyadan 1 sano kasoo shaqeeyay dib baan usoo laabtay isla iskuulka evergreen ayaan haddana dib ugu soo laabtay 2013 waa kusoo sheegay waa waqtigii aan jaamacadda bilaabay. ilaa iyo waqtigan hadda la joogo 2018 ayaan haddana imtixaan waxaa u galay dugsiga hoose dhexe ee balcad. imtixaankaasi oo anagoo 9 macalin ah aan kusoo baxnay. waxaan ka shaqeeyey muddo 1 sano ah 1 sano kadib 2019 waxaa ka noqday maamulaha dugsiga hoose dhexe ee balcad ilaa iyo haddana waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee balcad. sidoo kale 2000 iyo
21 ilaa 22 waxaan ahay macalin jaamacadeed oo kuliyadda sharciga ah wax ka dhiga. Darajadeedana waa master degree hadda gabagaba ii maraysa. waa ku mahadsan tahay. yaa kuugu dhiirigeliyey in aad bilowdo jaamacad? waayo saa hadda noo sheegtay muddo ayaa u dhexeysa dugsigii sare xilliga aad dhamaysay ilaa iyo xilliga aad bilowda jaamacadda. intaadan bilaabin ka hor in aad ka fadhiisato muddadaas saa u badan jaamacadda maxaa kalifay? Waad mahadsan tahay. runtii waa sir badanaad banaanka keenaysaa. waan ku faraxsanahay inaan aan kula wadaago. waxaa kalifay waqti muddo aad u fogaa u dhexeysa waa runta. waqtigaas jaamacadaha waxay ahaayeen kuwa lacag ah oo aad weliba qaali u ah, isla markaasna aynan ii suuragal aynan iigu noqonin arrimo dhaqaale darteeda. sidaas darteed waxaa doorbiday maadaama dugsi sare aan ka qalin jebiyey inaan iska sii shaqaysto ilaa aan gaaro heer aan isku filnaado. waana ku mahadsan tahay markii aan jaaniska uu ii saamaxay 2013 jaamacadda waqtigaan bilaaway xataa jaamacadda waxaan ku dhigtay as scholarship lacag aad u badneen la iga qaadayo oo adajaajis loo yaqaano. waanu mahad celinayaa. waxaan dhiirigelinteedan iska lahaa abtiga cismaan maxamed mukhtaar jolis. wuu nool yahay, ilaahay naxariis adduun iyo mid aakhir allah siiyo. waanan kaga mahad celinaa. awaal weyn ayaan kaga hayaa. iftiinkan maanta aan taaganahay iyo horumarkan aan gaaray isaga iyo ustaad ayuub ilaaha u naxariistay ayaan awaal weyn kaga hayaa. okay, kuliyadda aad ka baratay jaamacadda sida aad hore noogu sheegtay waxay ahayd shareecada. yaa kuugu dhiirigeliyey in aad barato mase adiga ayaa niyadaada ka keensaday? aad iyo aad u mahadsan tahay. kuliyadda sharciga inaan barto waxaa igu dhiirigeliyey maadaama aniga aan ahay macalin maadada tarbiyada islaamka dhiga, isla markaasna maadadaas aad ugu fiicnaa. waxaa nafsadeeda isiisay ama anigaba aan garowsaday in maadadii aan takhasus ka sameeyo, isla markaasina cilmi aad u ballaaran aan halkaasi ka keeno. maadaama qofka maadada uu dhigaayo la rabo in aqoon aad u durugsan uu u lahaado, isla markaasna yaraanteedaba ku fiicnaa maadadaas. saas darteedaan u doortay. sidoo kale waqtiga aan haystayna waqti iska wuxuu ahaa kooban, oo maadooyinka kale haddii aan doorto u baahnaan lahayd waqti aad u badan in la geliyo. isla markaasna mararka qaar waxaa dhicisay jaamacadda xataa in oo khamiisyada qaar mashquulka aadka u tirada badan ihaaya dartiis in khamiisyada qaar xataa aan jaamacadda imaanaynin. laakiin sidaas ay tahay jaamacadda kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad aan galay. inta badan kaalmaha koowaad aan galaya, kaalinta labaad wiil xasan la dhahay anigaan ku tartamin. marna aniga kaalin koowaad galay, marna isagaa galay. waa ku mahadsan tahay sida quruxda badan ay noola wadaagtay. mustaqbalkaada maxaa jeceshahay inaad noqoto? waa mahadsan tahay farxiyo. mustaqbalka waxaan rajeynayaa maadaama qof sharci yaqaan ah, isla markaasna loo baahan yahay dadka sharciga bartay in si fiican wadankooda ugu shaqeeyaan. waxaan rajeynaa mustaqbalka inaan noqdo macalin maadada sharciga ah jaamacadaha ka dhiga. okay, marka laga soo tago shaqooyinkaaga iyo waxbarashadaada heerarka ee kala duwan ee soo martay, su-aasha xigta oo ku weydiin doona waxay tahay ma leedahay khibrad kale oo inta aad had sheegtay dheer, xirfado kale ma leedahay oo noloshaada? aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaad og tahay farxiya adigoo mahadsan, wadankan soomaaliya burburkii kadib waxaa waaye wadankii wuxuu noqday maxaa taqaana yaa ka dhalatay inta badan ay ahayd. ani markii khibradda ugu weyn aan xooga saaray isla markaasna aan yaqiiniyey waa macalinimada. isla markaasna iyadaan xooga saaray oo iyadaan miro dhalkeeda aan aqaanaa. sidoo kale qofka markuu sharci yaqaan yahay
waxyaabo badan uu noqon karaa jirto. Sida wuxuu noqon karaa xeer ilaaliyo noqon karaa, wuxuu noqon karaa garsooro noqon karaa, wuxuu noqon karaa kaaliyo noqon karaa, wuxuu noqon karaa la taliye dhinaca sharciga ah. Marka intaasi oo dhan waxaa hakad gelinayo mar walba waxaa waaye shaqada hadda aan haysto ee macalinimada ah, isla markaasna shaqo aan ku faanayo ee tahay. Sababtoo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala wuu jecel yahay axadkiin markuu camal sameynayo camalkaasna uu ka dhigto mid sugan, isla markaas ama inuu sugo. Marka saas darteed macalinimada waa prioritigayga koowaad, iyadaana ku faanaa, waana aad iyo aadna waa u jeclahay. okay waa mahadsan tahay. isla su-aasha haddii ay u yara qaab eg tahay su-aashan aan kusoo wado, maxaa jeceshahay? haddaba way badan tahay maxaa jeceshahay haddii lagu dhaho. adiga hadda haddii lagu weydiiyo maxaa jeceshahay, maxaad ku oran lahayd? runtii waad mahadsan tahay. waxaan jeclahay mustaqbalka kuliyaddan sharciga ilaa iyo doctoore inaan ka diyaariyo, oo rajadeedana runtii maxaa la dhahay aad iyo aad igu iftiimeysaa. qofka maadaama masterkii uu gaba yahay, markaan dhammaysto waxaan jeclahay xoogaa yar inaan doctoorada kharashaadkeeda wixeeda inaan diyaarsado. wixii ka dambeeyana waxaan rajeynaa in ay igu dhiirigelin doonto ama igu garab istaagi doonto marwadeeda aan jeclahay Farxiyo Haashim Azar. okay aada u mahadsan tahay. ma jeclaan lahayd mase ma rajeyneysaa in aad noqoto wasiirta diinta iyo aqaafta? waayo shaqadaada iyo inta badani arrimahaaga mase waxyaabaha ay qabatid inta badani waxay soo hoosgalaan sharciga. marka ma jeclaan lahayd in aad noqoto wasiirta diinta iyo aqaafta adigoo hoos tacriifinaya mase muujinaya in aad tahay sharci yaqaan? Farxiyo aad u mahadsan tahay. runtii markaad fiirisid shaqooyinka Soomaaliya ama wasaaradaha Soomaaliya sida loo qeybiyo, waxaa loo qeybiyaa qaab oo 4.5 waa loo qeybsadaa, oo qaab qabiileysi loo qeybiyaa. inta badanna waxaa waaye wasiirada waa kala xirxiran yihiin. aniga wasaaradaha noo bannaan haddii aan 0.5 ka nahay waa wasaaradda wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. waxaa kaloo noo bannaan wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha. marka waan rajeynaa in mustaqbalka aan haddii 4.5 meesha ay ka baxdo waa loo tartami karaa oo khibradeeda inaan lahaan karo waan rajeynaa. laakiin waxaan kasii doorbidayaa in agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ama agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo aqaafta inaan kasoo bilaabo si heer wasiir aan u gaaro. waan mahadsantahay. aada u mahadsan tahay. intaas noogu ekeyd su-aalaheena aan weydiineyna walaalkeena. marna garabkeena midigo waxaa ku leenahay soo dhawow. intaas waxaa kusoo gabagabeyneynaa su-aalaheenii aan weydiineynay mase aan kaga hadleynay ka hadal taariikh nololeedkaaga. maxaa kusoo xiran lahayd Cabaas? Farxiyo aad u mahadsan tahay. wareysi qurux badan runtii. waxaa sharaf weyn ii ah inaan youtube-kaada kasoo muuqdo, oo runtii youtube aad u qurux badan oo dhalinyarada ee aqoon u badan kuliyadda beeraha aad ka xaqabtirtid. runtii anigana aan ku xiranahay, waan kaga mahad celinaa. maanta anigoo taariikh nololeedkayga ka hadlayo inaan youtube-kaada kasoo muuqdana runtii sharaf weyn iyo farxad ay tahay. waxaan kusoo gabagabeynaa waxyaabaha qofka la rabo in uu sugo waxaa waaye waxa markaas uu haysto. tusaale ahaan shaqo macalinimo hadduu haysto ama shaqo kale haddii uu haysto, waxaa aada muhiim u ah in shaqadiisa uu ku qanacsan yahay, isla markaasna shaqadiisa uu ilaashado, shaqadiisa waqtigeeda uu dhooro, shaqadiisana uu ku dadaalo. runtii shaqada hadda aan hayno waa shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu hayn jiray oo ah risaalada. macalinkana waxaa waaye gabyayga wuxuu ku tilmaamay in macalinka uu ku sigtayba in uu rasuul noqdo, sababtoo ah risaalada nabiga loo soo diray gaarsiintiisii ama gudbinteedii ayuu u taagan yahay. isla markaasna macalinimada waxaan dhaabsanaya ama doorsanaya ma lahan.
runtii aada ugu faanaa wax walba oo shaqo ah way igala muhiimsan tahay, weligeedna way igala muhiimsanaan doontaa. Jagooyin badan oo la isoo bandhigay oo aan macalinimada ka doorbiday ayaa jirtay, haddii aan gadaal ka raacsado. Isla markaasna macalinimada waa waxa ugu muhiimsan ama muhiimada koowaad ee agteyda ku weyn waa macalinimada. Isla markaasna aadaan u jeclahay mar walbo arday Soomaaliyeed waxba aanan aqaanin oo u badan dadka danyarta tabaaleysan inaan aqoonta aan leeyahay aan ku saacido, oo runtiina mar walba aan la garab taaganahay. Maanta waxaad arkaysaa macalinka waa jaranjaro waaye ama shumac waaye, isaga waa la iftiinsadaa oo iftiinkiisii ayay dadka iftiinsadaan, ama waa jaranjaro isagaa heer lagu gaaraa. Waxaad arkaysaa macalin ardaygiisii mishaarka uu qaadanayo marka la fiiriyo mishaarka macalinka uu qaadanayo inuu ku laba jibaarmo, laakiin macalinka waxa kaliya uu roorayo ama waxa kaliya uu dadaalayo waxay tahay sharaf. Marka sharaftaasaa loo dhimanaa, wax kale maahan. Waxa waaye haddii macalin noqo, haddii aad rabtid inaad sharaf yeelatid macalin noqo. Sidaas darteed waxa anaga aan u dadaalayna wax kale maahan, sharaftaasi waaye. Saasaan nagu kaliftay in risaaladii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam anagoo jidkeeda ku taagan inaan macalinimada aan ka doorbidno shaqo walbo oo adduunka taala. aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee taariikh nololeedkayga waxyaabo badan aad iga wareysatay. Runtii oo markii ugu horeysay wareysi noocan oo kale aan bixiyo, waxaan filaa in dad badan oo taariikh nololeedkayga aanan aqoonin in YouTube-kaada ay ka baran doonaan insha allahu tacaala. aad iyo aad u mahadsan tahay. adiga ama waxaan ku leenahay soo dhawow waqtiga sida quruxda badan waqtigaada iyo taariikh nololeedkaada aad nagu aaminto noogu soo gudbisay, waan kaaga mahadcelinaynaa. intaan midkaan mid leecayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah. ha inaga hilmaamina sheerta, commentiga iyo subscribe-ka, inta waxay noo yihiin dhiirigelin insha allah. asalaamu calaykum.